shirkadda keenta batroolka Dalmar Waasac Company ayaa ka hirgelisay xaafadda Baarsiga ee magaalada Burco xarun casri ah oo bixinaysa batroolka iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin gaadiidku. Company-gan ayaa xarumo ku leh deegaano dhowr oo ka mid ah deegaanada Soomaalidu degto, waxaanu soo dejiyaa batroolka iyo gaasta diyaaradaha. Ganacsiga gaadiidka ku sii kordhaya gayiga Soomaalidu degto ayaa sare u qaaday ganacsiga shidaalka ee bulshada Soomaalida. Madaxa xarunta ganacsiga shidaalka ee Waasac ee magaalada Burco Cabdiqani Cawil Xuseen ayaa ka waramay xarunta ay fureen horumarka company-ga, adeegyada uu bixiyo iyo higsiga mustaqbalka company-gaasi Waasac Petroleum. xaruntayada labaad ee gobolka Togdheer anagoo ah marka company-ga la yiraahdo Waasac Petroleum building-kan aanu ka dhisnay qaybta labaad ee Baarsigo inaan warbixin kooban aan uga waramo ujeedada aanu dhismahan u dhisnay inaanu ahayn anagu lacag ka helay laakiin inaan ummadana uga faa'iideyno bilicda magaaladana aanu ku qurxino oo ummadda wixii aanu ka helay aanu ku soo celino ay ujeedadeedu ahayd run ahaantii company-ga la yiraahdo Waasac wuxuu aasaasmay 95 bishii 3aad 6deedii asna markaas oo gobolka Togdheer kaalinta Baarsiga una ka jirtay waxay la midowday 2006dii company la yiraahdo Dalmar waxaan si balaadhisay shidaalkii iyo naftada iyo petroolkii iyo gaasta dabiiciga ah ee iibin jirtay ku kordhisay markaas oo company-ga ay isla qaateen isla aasaasan gaasta diyaaradaha oo ilaa hadda ay ka shaqeeyaan oo gobolada Puntland iyo Somaliland airportadeedaba company-gu ka hawlgalo markaas waxa loo bixiyay Waasac Dalmar. kaalmaha kale waxaanu leenahay gaarsiinayna inay magaalada bilicdeeda ay soo saaraan way dadka lacag lama gaarsiin laakiin wanaag ayaa gaadha company-ga Waasac Petroleum waxa uu ayaa la shaqeeyaa waaxyaha dawladda Somaliland waxa uu gacanta ku hayaa hadda mashruuca ugu ballaaran ee Somaliland laga hirgeliyo xubnaheena qaaliga Axmed Maxamed Siilaan oo dhagax dhigay ee wadada Ceerigaaba Siilaan iyo Reer Doctoranti waxaana company-ga ku guuleystay inuu service-ka u sameeyo wadadaas. Company-ga Waasac Dalmar Petroleum ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka keena Somaliland iyo deegaanada Puntland. Ali Dar Maxamed Boos TV Universal Burco.